maxaad markaad hudheer soo gashid aad ku qiimeyn kartaa? Wallahi afar shay way badiyiin horta ilaa iyo 10 waa la dhihi karaa. Laakiin waan soo koobay afar ba main afar ba muhiimsan aniga ku qiimeeya. Waana wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada maxaa cusub iyo xalqad cusub. Maanta waxaan maraynaa xalqadii markaas 28aad. Farxad baan inoo tahay maanta. Waan ka gudbaynaa sheekooyinkii qaar aynu hore ka sheekeyn jirnay. Maanta waxaa nagu cusub bal qiyaas adigoo yiri waxaan raadinayaa meelaha cuntada lagu cuno, waxaan markaas eegayaa sida cuntada u sameeyaan, sida nadaafadoodu tahay iyo wax kale. Maanta markaa waxaa noo ah Shaylaani Maxamed Sheeko oo markaas ninka markaas aasaasay Food Finder wax la yiraahdo oo markaas af Soomaaliya ay ku tahay cunto raadis. Shaylaani badan markaas wuxuu magaalada degan Hargeysa isagoo markaas qurbo joog soo wadan ku soo noqdayna Shaylaani waxa markaas caan ku yahay markaas meelaha gymka iyo sportska. Shaylaani waxa kale markaas caan ku yahay markaas inuu cuntooyinka ku sheego waxa jirkaaga ku wanaagsan iyo wax kale. Shaylaani ku soo dhaw maxaa cusub? Waan dhawahay walaal. Runtii Food Finder ama cunto raadis waa wax aad interest ah. Inta maanta kulku nimaadaan waxaan weydiinaa horta maxaa ku cusub? Waad ku maasantahay horta barnaamijka ugu casuumtay maxaa cusub podcast sharaf ay tahay. barnaamijkayga waa Food Finders Hargeysa marka waxaan ugu talagalay af Soomaali ahaanna waa cunto raadis. Marka cunto raadis hadii sharaxna waxa weeyaan meelaha laga cuno subax waa cunto aan raadinayo meel walba cunto lagu sameeyo hadii noqoto hotel yar hotel weyn xaafadaha islaamaha chapatiga sameeya waa wixii cunto ku xisaabsan marka ayaan raadinayaa. Marka maxaad raadinaysaa? waa cunto raadis marka waxaan sameeyay barnaamij oo aan ku bilaabay hadda Facebook ahaan marka xagaasaan ka soo dhigaa hadii noqoto dadka xaafadaha cuntada ku sameeyo hadii noqoto hotel weyn hotel yar oo Hargeysa dhan qorsheyga waxay tahay inaan meel walba tago aan ka soo hadlo wixii cunto ah marka cunto raadis waa sidaas. marka waa luqadda qalaad waxa lagu yiraahdaa food review. marka adigu waxaad doonaysaa inaad cuntooyinka noocyada yihiin intaad hoteelka tagtid aad tijaabisid dhadhamisid cuntid dadna markaa sharxadid soo kama waa sidaas marka waxaan ugu talagalay dadka xaafadaha joogay guriga joogay shaqada joogay inaan u fududeeyo aan hotel walbo aan wixii cunto ah xaga kala socdaan page-kayga oo hadday noqoto qiimo hadday noqoto dhadhan marka waxa laga yaabaa meel waxa jiro aan dadka ogeyn marka runtii hoteeladana ku badan Hargeysa aad bay ugu bateen marka aniga qorsheyga wuxuu yahay meesha cusub meel cusub waxa laga yaabaa meel standardkiisa ahay 10 sano ka hor 5 sano ka hor inuu hadana wax iska bedelay mise inay wax ku soo kordhiyaan marka wixii hore ma la socdaa marka waxa tahay qof raadinaya meelaha laga cunteeyo iyo meelaha markaas laga caawiyo laga cunteeyo inta badan Shaylaani marka la yiraahdo hudheer Soomaaliyeed baan imanaya waxaan iyo sheegayaa cuntadaadu waxay dhadhanto waxay markaas customerkaas yahay sidee dadku u soo dhawaayeen hudheelada dadka ilaa sidee u soo dhaweeyeen? wallahi inta badan horta dadka hoteelada leh qaarna way dhex taagan yihiin way joogaan qaarna way ka maqan yihiin waxa laga yaabaa qofka meesha ka shaqeeyo inuu joogo marka anigana wax baan kala kulmaa caqabado badan kala kulmaa oo kamid ah markaad meesha duwaysid for example video ugu horeeyaan duway waxaan ku dhahay lacagtiina sita waxaan rabaa inaan cuntadiina dhadhamiyo marka hore markaan u sheegay waxay imalayeen inaan free wax ku cunayo igu dhahayn lacag ma bixinaysaa marka hore noonu sii sheegay waxaan ku dhahay lacagtiina aan isku qabo oo waxaan sameeynaya inaan cuntada aan iibsado aan dhadhamiyo markaasaan feedback nisinaya oo review Shaylaani adigu waxaad ku qiimeysaan maxaad markaad hudheer soo gashid aad ku qiimeyn kartaa? wallahi afar shay way badiyiin horta ilaa iyo 10 waa la dhihi karaa laakiin waan soo koobay afar ba main afar ba muhiimsan aniga ku qiimeeya oo dadka kalena waxaan aaminsanahay inaan isku aqli mise isku fikirnahay. Number 1 waxa ugu muhiimsan waa hygiene oo nadaafadii meesha ah hadday noqoto madbaqi ilaa iyo meesha wax ku cunaysid waa hygiene. Number 2 waxa ku qiimeeya waa service ka meesha soo dhaweynta iyo service ka customer service. Number 3
waa taste waa dhadhanka number 4 waxaan ku qiimeeyaa price-ka tastiga dhadhankaan lacagta ku bixinayo iyo price-ka musleeyahay hotel waxaad arkaysaa for example $12 casho laga qaadiyaa okay $12 markaad bixisid dhadhanka hadduu istaahilo $12 wax ma arkaysid laakiin markaad service-kii wuxuu ka xun yahay haajinkii ka xun yahay price-kiina qaali yahay tastigiina aan taste fiican ahayn marka waa arrin kale inta in leeg baad markaa waday barnaamijkan wallahi barnaamijkan horta waxaan ku fikirayay aan rabay inaan 2024kii ayaan waday laakiin hadda si official ah ayaan hadda muddo adiga dhowr bilood wadaa si official ah oo waxaan ula jeedaa marka hore inaan hoteelada tagaan wax iskaga cun jiray aan qiimeyn jiray laakiin hadda si official ah page waan samaystay marka xagaasaan ku reed gareeyaa afarta iminkada soo sheegay sax kama soo qaado kale Jaylano hodeel baan leeyahay dadkeenu way yiri hodeelada Hargeysa waxyaalo badan baa qaarna wanaagsan qaarna way xum yihiin sax waxa ka soo qaado hodeel baad samaysay wali wax caqabad ma kaaga hortimo hodeelada niman kale inay ku dagaalaan ama markaas dhibaato ku timaado wallahi hadda so far intaan wado wax weyn oo aan la kulmay ma jiro laakiin mar walba horta waxa muhiim ah qofka hotel kala asiga doon ugu jirta oo for example markaan cuntada aan afarta shay ka soo hadlay markaan u soo bandhigo afartaadii asigunba iska hagaajin karo for example imikala afartaa haddaan ka waayo mise feedback baan siiyaa inta badan waa sax feedback baan siiyaan u sheegaa waxaan baadii afartaasaa kaa qaldan imikala dhaktar fish wax laga yaabaa service-ka hygiene-kii wixii qofka markaan rate siiyo for example 10 ilaa iyo 7 todobadaa markaan ku qiimeeyo oo 3 baa ka dhiman marka qofkii wuxuu leeyahay ownerkii walaal maxaad 7 ii siisay waxaan kuu siiyay waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa marka qodobka waan u sheegaa oo feedback ayaan u sheegaa way Jaylani markay timaado inaku inuu inta hodeel galno ka cuntayno waxa markaa lagu yaqaanay ninkii dhalinyarada ahaa TikToker ka ahaa ee Atosh dadku markaa hore ma Atosh waa noqotay wallahi waa aad ugu badan tahay su'aasha Atosh share waxay ugu dhahan calool baa ka soo bixi doono oo Atosh baad u ekaan doontaa ma waxaad iska deysid marka waa su'aalo maalin walba lii weydiiyo laakiin uma joojin Jaylano dadkeen ma fahansanay rufriyo taa marka laga yimaado maxaa kugu yaabnaa dadku ku soo celiyaan wallahi su'aashu ugu yaabnaa oo lagu soo celceliyo maalin walba lii weydiiyo oo lagu dhahaa warniyo ma sha Allah oo mabruuk congratulations ma hotel baad furatay marka hotelkii aan wax ka soo duubayo mise aan review ka soo sameynayo waxa loo maleeyaa aniga furtay war hotel baad furtay way hadaan hotel furtay umida ma laba saddex waa 8 iyo 10 video ma soo dhigay ma tabanka ana furtay Jaylani runtii marka ay hodeel tagtid cuntooyin badan kala duwan baa lagu siinayaa qaar ay protein ku badan yahay qaar fat ku badan yahay macallin baad tahay markaasi gym mana hadhowta adiga saameyn ku yeelanayn wallahi waa su'aal fiican horta xalay waxaan isku dayay inaan Caesar salad iyo grilled chicken inaan dalbado way markaan dalbaday xalay waa habeenkii aan isku dayay inaan laba casho cuno laba hotel kala tagay normally every Friday baan duubaa halka Jumco baan duubaa marka hotelkaade cunta oo aan ku qancay mise aan happy ku noqday kama helin marka waxaan ku qasbanaaday inaan hotel kale aan tago aan duubo marka labo meel baan isku soo maray laakiin waxaan sameeyaa 6 days 6 cisho oo gymkaygaan tagaa diet-kayga waan ilaaliyaa strict diet baan ku jiraa marka sidaan ognahay cheat day baa jira marka maalmaha Jumcaha cheat day-ga ayaan isku dayay inaan hoteelada tago aan food review-ga cuntadeedii wixii waa Fridays Jaylani runtii waad ku maasantay waqtiga noo soo hurtay haddii qofku uu doonayo inuu markaasi kula socdo how kala soconaya Facebook page waxa ku qoran Foods Finders Hargeysa TikTok iyo YouTube iyo inta kalena waan soo wadnaa insha Allah very soon Jaylani runtii waxaan rajaynayaa dee waa mashruuc loo baahnaa aniguna maalin kasta ma awoodi karayn hodeel cusub laakiin inaad markaasi noo soo tijaabisid hodheeladii adigu noo soo sheegtid noo review garaysid waxaad u hawl fududaysay dadkii markaasi suuqa wax ka cunayeen waxaan rajaynaya inay Hargeysuna fahanto
inaanad markaasi cunto cunayne ee aad u sheegaysid waxay tahay cuntadanu aad iyo aad ugu mahadsan tahay waad mahadsan tahay waxaan kusoo gabagabayn lahaa ugu muhiimsan barnaamijkan ma aha only waxaan ugu talgalay Hargeysa imikada for example asxaab badan baan leeyahay from Sacuudiga aan kusoo koray Carabta hadday noqoto Ingiriiska asxaabteeda marka asxaabta Ingiriiska imikada samarkii imaan doono ayaan u fududeynaya international qofkii for example de ma awoodo wuxuu ku leeyahay week baan haystaa mise 10 cishaan haystaa Hargeysa waxaan soo gala soconaya in hotelka aad tagay kentiga oo waxaan u baahanahay fish baan u baahanahay waxaan leeyahay dhakhtar fish tag waxaan u baahanahay shower maan u baahanahay waxaan leeyahay ibn sham tag marka xagaas aan ugu fududeyn qofkii beejiga la soconaya waa very easy tabanka cishu joogo oo ka faa'iideysanaya meesha marka beejka waxaan ugu talgalay dadka dibadaha ka imaado ayaan rabaa iyo qofkii localka ah xataa inuu ka faa'iideysto labada aad ugu mahadsan insha Allah waayahay runtii waa food finder waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan waxaan leenahay haddii markaasi aad doonaysid halkee wax laga cunaa Hargeysa iyo meelo kaleba food finder markaasi Facebooka iyo markaasi TikTok waa ka hel Jaylaani shaqo fiican ayuu qabtay waana mahad celinayna inta barnaamijkan iyo barnaamijka la kulmayno waana waa khadir dir naga tagayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh